weligaa ma isweydiiso su-aal ku salaysan maskax sababta astaan t v ay u haayargaraysto ama ay u shaqaalaysiisto dadka social media caankaa qaasatan youtube-ka ama dadka ugu filowga badan facebook. Haddii su-aashaas hadda kahor aad isweydiiso laakiin ahalilaada jawaabteeda, halkan ayaan kugu qaxinaynaa waana 4 qaybood. qaybta koowaad waxaanu ka qaadanaynaa cashir iyaga ku dhacay 2 qaybood badan iyada astaan ugu jirto. qaybta afaraada ugu dambeysana aynu ka dhigayno kuwa hadda danta lagu wato waxa ayaga u mustaqbala. waxaanu ka bilaabaynaa qaladkii ugu weyn ee astaan t v ay gashay laakiin ay wax ka baratay. waxaa soo baxay dhowr sano ka hor xidiga la holin waayay Sharmaboy. isla xidiga ayaana jeclaystay inuu kasoo muuqdo markiisii ugu horeysay astaan t v, hase ahaatee waa loo diiday. xilligaana wuxuu waday hees astaan t v loogu talagalay. waa xidigii bilowgiisii. nolosha aadanaha ayaana ku salaysan shaygan bilowgiisa inaad hesho ama aad la kulanto caqabada kala duwan. hadday ganacsi tahay, hadday waxbarasho tahay iyo hadday fan tahay, wax walba oryadaada waxay leeyihin caqabada kaa hortaag. hase ahaatee xilligaa astaan t v waa yastay, wayna inkirtay, wayna dafirtay taalentigiisii. waxaa jirto hees aniga aan sameeyey oo astaan t v aan u sameeyey xataa anoo fanaan ahayn hees qaadin weliga aan qaadan. heestaasaan sameeyey dhalinyaro badan oo astaan t v la shaqeyso, dhalinyaro badan oo t v-gaas ka shaqeeyaan la kaashade nimayaho hal igey t v-ga waxaan rabaa inaan wax soo bandhigo weliba t v-ga aan ammaano. ma garate sax ma ogi qarash la-aan maa jirta markaas t v-ga xoogaa ma ku daadsanee ya ligu adkii adani qofku waa ama qofta ninka ragga lama yeeso weligaa ninka ragga lama yeeso yasma meeka ahayd yasma meeka ahayd wariyaal ma u tagin baani wariyaal lama kulmo way soo wicin wariyaasha meesha kadib bay soo wicin markaa xadeertaan Sharmaboy ee dadka ay bixiyaan shacabka markay ay bixiyaan ay soo wicin laakiin kor ana u baana ilaan ayay ima kasiin awoowin ima kasiin waxa waaye waa lixmii ninka ragga waa ninkii jab soo mara ugu dambeyn Sharmaboy dhibaatadii loo geystay waa ka soo gudbay. hadda la joogana wuxuu ku dhaqanya dalka Mareykanka. wixii ku dhacday astaan t v waxay ka baratay cashiro la yaab leh, shalay iyo wareer ayay ka qaaday. hase ahaatee Sharmaboy dadka anay hadal hayaan koon kaluu ka imaaday ku hayaan mars miya waan ku raaxaystaa jabkooda anigaa jabiyey qabkooda kumaba haysta ka waran qaabkooda kuwaan iguma socda hadalkooda rabbiyow kaa magangalay ishooda somali anaahaaya dalabkooda. astaan t v ayaa wax ku dhacay shirka barata laakiin waxay go'aansatay inay game cusub ama qidad cusub ciyaar. astaan t v ayaa go'aansatay inay haayargaraysto ama ay shaqaalaysato dadka social media caanka kasoo bilaabo YouTube ilaa Facebook. tusaale ahaan Boqolboy ilaa Idris Alteso oo ah wiil ka yimid Yurub iskana dhigdhigayay weli cali aadan moomin. ugu dambeyn ujeedka ay dadka u haayargaraysto ayaynu rabnaa inaan mar laba dul istaagno. hab shaqaalaysiinta qidada khiyaanada ku duuganta ayaynu rabnaa inaan dul istaagno. astaan t v kuma haayargaraynaysa ama kuma shaqaalaysiinaysa adigoo haysto 50,000 iyadoo ujeeda qof haysta 250 ilaa 500,000 oo filo. taas ayaana keenaysa dad badan inay u arkaan astaan t v inay tahay meesha loogu daawasho badan yahay, laakiin khiyaanada ku jirta ayaan dib kugu celinaynaa meeshaas. tusaale ahaan adigoo Boqolboy YouTube-kiisa ku xiran oo YouTube-kiisa aad u tahay qof ku xiran oo subscribe u saaray taageero qaasna waa haddii uu kasoo muuqdo astaan t v suurtagal kuma noqonayso inaad YouTube-kiisa tegto sababtoo ah qofkii aad adiga YouTube-ka ka raadin lahayd wuu kaaga muuqdaa shaashada. sidaa darteed waana khiyaanada ay isticmaaleen astaan t v waana cashirkay kasoo barteen Sharmaboy. laakiin su-aal kaloo muhiima gabagabadii waana qaybta afaraad ugu dambeysay. xikmad ayaa waxay tahay hadii aadan adigu dhisan riyooyinkaada qof ayaa waxa uu ka shaqaalaysiin doonaa in riyadiisa la dhistid. dadka intaa falow haystaan ma laga yaaba inay iyagu midoobaan samaystaan wax iyaga u qaasa mise waxay noqon doonaan ma liibaanayaasha lagu liibaanay. barnaamij midkan lamid intaynu kulmi doono sida ay nabadgelyo.